sanad kasta waxa la leeyahay adduunka ilaa 650 kun oo qof ayaa daafaha caalamka ugu dhimanaya hargabka ama fuluga waxa loo yaqaano 5 milyan oo kalena si baan ayay ula xanuunsadaan bal leeyahay sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee la soo gaabiyay magaceeda la yiraahdo WHO. Liverpool hadaba meesha lagu sameeyo talaalka ugu sareeya ee hargabka ama fuluga halkaas oo 50 milyan oo qaybood lagu sameeyo sanad kasta iyadoo la adeegsanayo ukunta digaaga Sigrios waxay talaalka dalalka kale u geeyaan oo fog sida Australia iyo New Zealand. Cabdishakuur Cabdilaahi ayaa soo jeedinaya. waa shaybaarka Liverpool oo ukunta digaaga ka sameeya 100 milyan oo qayb oo ah talaalka hargabka. Tan iyo 1930yadii ukunta waxaa loo adeegsanayay daweynta caabuqa hargabka sababtoo ah waxa ku jira dhammaan nafaqada loo baahan yahay. maalin kasta ilaa 5 milyan xabo oo ukun ah ayaa halkan la keenaa. kadib marka la dhaqo wax yar oo ka mid ah nooca hargabka ayaa lagu durayaa ukunta. kadib waxaa la kaydinayaa 72 saacadood si caabuqa uu u samaysmo. qaybta sare ee ukunta ayaa la jarayaa kadibna biyaha uu caabuqa ku dhex jiro ayaa la soo saarayaa. markaas kadib waxaa lagu qasayaa waxyaabo kale oo hargabka uu ka samaysmo si talaalka loo sameeyo. noocyadaas hargabka waxaa soo xusha WHO 6 bilood ka hor xilliyada uu hargabka bilowdo. waxay hay'addu hargabka ku dabagashaa in ka badan 100 dal si loo helo oo looga shaqeeyo nooca ugu halista badan. ukuntan waxaa laga sameeyaa talaal lagula dagaalamo hargabka Southern Hemisphere. ilaa 650 kun oo qof ayaa sanad kasta daafaha caalamka ugu dhinta hargab. tiro kale oo gaaraysa 5 milyanna si ba'an ayay ula xanuunsadaan sanad kasta. talaalka hargabka qaar ka mid ah waxaa la sameeyaa ukun la'aan maadaama ay dadka qaar xasaasiyad ka qaadi karaan talaalkan.